waxa lagu yiri ama la su'aalay goormaad kubadda cagta ka fadhiisanaysaa ama aad joojinaysaa wuxuu ugu jawaabay waxaad weydiisaa qof wax jecel goormaad iska deynaysaa qofka jeceshay inaad la hadasho xataa haddaad iska dayso ama aad isku daydo inaad iska dayso goormaad joojinaysaa inaad la socoto dhaqdhaqaaqiisa qof wax jecel baa xaaladda garan karayee qofka aad jeceshahay si kasta haddaad isugu dhacdaan ama aad u xanaaqdaan waxaad raadinaysaa riisan yar oo aad qofkii ku wada hadashaan xataa haddii ay isla weyni ku gasho oo aad diidday inaad la hadasho qalbigaagu wuxuu u addoonsan yahay qofkaad jeceshahay waxaad raadinaysaa qofkaasi meeshuu marayey waxaad la soconaysaa dhaqdhaqaaqiisoo dhan cidduu la socday iyo cidday la socotayba waad dabagelaysaa markuu jawaabtaa bixiyey su'aal dambe kamay soo noqonin waa ninka keliya ee carabtu waxay idhaahdaan yaa layta ashabaabu yacuudu yowman maalin mii dhallinyaranimadaydi soo noqoto ee wuxuu aa ninka keliya yidhi yaa layta ashabaabu maa yacuudu yowman dhallinyaradanimadaydiiyay sooba noqonba sababtoo ah markuu 30 kor u dhaafay ayay kubaddiisii uu la soo baxay kubad la yaab leh waa badalka qisadeennan waa mid ka mida laftibaagyadii kubadda cagta soo maray ku-xigga ugu qaalisanaa xilliyada ka midana ugu wanaagsanaa balse aanay saxaafaddeedii soo gaadhsiin ama magaciisa aan la buunbuunin waa Amidio Carboni waa xidigii hore Valencia sideedaba ciyaartooyda Ingiriiska iyo kuwa Isbaanishka iyo kuwa Talyaanigu qaramada waddankoodun bay ka dheeraan naadiyada waddankoodun bay u dheeraan midhmidh baa dibadda uga baxa laacib midhkaasina inta badan ma noqdo way yaryihiin inta saddexdaa waddan aan kuu soo sheegay ciyaartooy dibadda uga baxday laacib noqdeen